طلعي Soomaaliya طلعي Soomaaliya طلعي haddaa aragtaan Omar dhararka sii deynayo la durayna waa aniga war Omar barbar wariyaa lagu haleynaya war wiilka dayaca darxumada diifta daryeel la'aanta war maxaa Soomaaliya ugu daawanaysan si sheer gareeya nacala shayda ku yaalo qof kasta gaarsiiya anigu umada Soomaaliyeed baan la hadlayaa cid gaara iyo qabiil toonna halka uma fadhiyo qabiil la waa ogahay wuxuu yahay waa garanaya qabyaalada watan halka ina dhigtay watan ina kala qaybisay watan qurunka watan ina qaxisay watan walaalkeen maanta halka baday laakiin dadka Soomaaliyeed oo aan kalsooni buuxda ku qabo oo dad dul xariira ah oo isu gurmada oo isku dareena oo maanta aan ogahay intay ka tira la eg yihiin inay u heelan yihiin laakiin meel wax ka galaan ay la yihiin oo heerka tabari gaarsiisay ay marayaan inay safaaradii Canada ee Norway intay u daataan 20,000 oo committee ay jiis kaga dhigaan marka aanu Soomaalidaas aan la hadlayaa waxaan idin ka codsanayaa inaad sii sheer gareysaan qof kasta gaarsiisaan khaasatan reer Norway reer Oslo reer Scandinavian Europe inta joogta qofkii maanta diyaarad xataa intuu goosto wiilka u tagi kara meesha ka soo amba bixin kara soo kaxayn kara gacanta soo qaban kara Omar barbar waa la socotaan xaaladiisa anu safar baan ahaa ayaamaha ka waa mashquulsanaa qadar baan ku maqnaa internet kuma fiicna hadda Nairobi aan ku soo laabtay xalaan soo galay wiilka muuqaaladiisa markaan daawaday horena waan uga soo hadlay war Soomaaliya wiilka wixii aad tari kartaan tara u gurmada garab u noqda ixtiraama intaasaan idinku soo iri maanta intii baan rabaa inaan sii xoojiyo walaalayaal wiilka ha loo kaco qof kasta oo Soomaaliyeed kalsooni baan ku qabaa haddii idin seexan oo u heelantihiin oo u soo jeedaan oo idin tabar la harin meel kasta joogtaan min Boorame ilaa Beledweyne min Boosaaso ilaa Burco min Banaadir ilaa iyo meesha Soomaali ay degantahay ugu dambaysa min Jilib ilaa Jamaame marka ilaa qurbe ilaa dal hadda u heelantihiin waxba idin ka hakranaynin tabari meeshii in dhigtaba aqaylisan dawladii Canada maxaa ku raahday albaabada uga daadateen fariintiisa gaarsiiseen waxaan rabaa inaan si gaar ah ula hadlo dadka Norway degan oo wiilkaasi martida u yahay gaar ahaan magaalada Oslo ee caasimadda ah war Soomaaliya wiilka ha loo tago war waxaan arkay adreeska uu soo diray war ma meel cabsi ah war meel qof dayacan oo daryeel u baahan oo maxaa ku raahday baxnaano u baahan uu xataa wax ku subi karo ma war wiilka meesha laga qaado war meel istaahil ha la geeyo war safaaradiisa ha loola hadlo war baasaboorka ha loo soo hagaajiyo war tigir waxa weeye waxaanu awoodi weyno maaha iyo 5 qof oo lagu daro oo u sii sheekeeya oo iyadoo saa loo galbinayo war Canada ha la geeyo intaas aan idinka codsanaya yaan cidna lagu hadlayn reer hebel yaan lagu hadlayn daarood yaan lagu hadlayn majeerteenku ka dhashay yaan lagu hadlayn Umar Maxamuud yaan lagu hadlayn qabiil waa ogtihiin inuu waxna yeelo oo qabyaaladii waxna ka dumiso maahe waxba inoo ma dhisto dadkii dad u xigay weeye dadku ka cabanayo wax ka tabanayo waxaan ku yiraahday TikTok waa la socotaan malaayiin baasaa loogu bixiyaa anoo aan cid kale eegin Umar Maxamuud labadii bilood oo ugu dambeysay $1 milyan ka badan bay TikTok ku bixiyeen 500 kuna uu goostay TikTok 500 kuna maxaa ku raay gift meelaha ay ka tagtay marka qabiil waa ka inta barwaaqaysan tahay aboodboodayso waa ku rabaa qada waa ku siinaya waa ku garab istaagaya laakiin maalinta soo dhacdo waa laga kala dhuumanaya cid gaara oo Soomaaliyeed oo eedaale ma jirtee qabiil oo dhan basa u folxun oo qaab darada leh waa kan halka ina dhigay qarankeena ina ka burburiyay qaxootiga ina ka dhigay ina kala qaybiyay marka walaalkay waxaan rabnaa inoo aan cid gaar ku hadlayn inagoo maxaa ku aan Soomaali u eegin cidu yahay aan u eegin sida haddaba ugu heelantiin in loogu heelaanaado halka uu soo dhigo adreeska aan loogu hagaago loo hagarbaxo intii u dhow intii wuxuu qaban karta inta u soo ducayn karta u soo ducayso inta garab iyo gaashaan u noqon karta allana iska daayo waxa la yiri qof ku boqol ku talisay qofba inuu arinta meel ku dhufto walaalkeen waa ka xaaladiisu waa u joognaa waa u jeednaa gurmad buu u baahan yahay in wax loo qabto loo gurmado maanta u baahan yahay in la samata bixiyo gurigiisii lagu celiyo dalkiisii la geeyo iyagu see rabaan hawlo tacaaleen hadhowdii dhakhtar ha geeyeen waxay rabaan ha ku sheegeen in meeshu ka yimi oo ku qanacsan yahay oo isagii doonayo in ula dalaalo diyaaradda ku tuurno wax aan bixino intaas la ina ka rabaa berika maalin markuu soo caafimaado isaga hadii cidi wax yeeshay waxa weeye qof kasta godobta cidi ka gashay waa garanayaa isaga ha loo daayo laakiin waxyaabaha kale la isla dhaxmarayo oo ku turkuteenta u badan
oo halkay ka dhacday iyo hebel baa wax yiri hebel baa saatan yiri aynu arrinta ka dayno intaasaan idinkana idinka codsanayaa maanta uma baahna in laga maadsado uma baahna in lagu wiirsado uma baahna in loo fiirsado uma baahna walaalkeen gurmad buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay waxa la yiri dhicisku midida inta loo soo sido yaa oo la gowracayo baa naftu ka hada walaalkeen usbuuc baa halka ka qaylinaya ilaa iyo hadda xaaladiisa cid si dhaba u gashay ma jirto cid waxa la qabatay ma jirto wuxuu ku qanacsan yahay cid weydiisay ma jirto halkaas uu ka soo qaylinaya ilaa maalintii ugu horeysay ilaa yoomana hada maxaa la sugaysaan ma isagoo saa u qaylinaya inay ka baxdo ama u dayac ama meel xilli uu ku baxaa doonaysaan maxaa sugaysaan marka reer Soomaalida oo isla degan waxaan leeyahay loo kaco anuu qabiil ula hadlimayo waxaan ula hadlayn magaalada uu joogo dadka u xiga baa laga helaya dadka u xiga baa laga helaya Soomaali waa istaqaana waa wada qaxday meel kastana waa wada taagan tahay ilaa ay hadda wiilkaaste waxa weeye haday garbaduubi lahaayeen oo wuxuu u baahan yahay mobilka inta saa uga dafaan ay dhahaan maxaa ku macaan maxaa ku qaraar maxaa ku qanacsan tahay leefakan jooji naftaadu maxay ku qanacsan tahay maxaa u baahan tahay halka hoo cun hadhicin hajabin maba aragneenba dibtiisuna inama soo gaarteen qayladiisana waa ka nasan lahayn walwalku ina ku hayana meesha waa ka bixi lahaa laakiin inuu ilaa ay hadda mobile saa u sito oo tala ay yaa Soomaaliya halka ka soo leeyahay dayac jira bay muujinaysaa tolnimo xumo heshay Soomaalidii oo wali aan garabku u baahnaa siin bay muujinaysaa marka waxaan leenahay waxa weeye ninka loo kaco maanta qadiyadiisu qadiyad Soomaaliyeed weeye dadka Soomaalida ah ee wiilka u dadaalaya ee maraya heer dawladda Kenya Soomaalida wiilka u dadaalaysa ee u ducaynaysa ee maraya heer dawladda Canada ay ka harsan weydo waxa leeyahay waa mahadsantihiin qofka Soomaaliga ah hantida maraxa raasumaalka ugu dameeyo ee uu leeyahay ee uu ku baxsan karaa waa dadka Soomaaliyeed waa ku faraxsanahay waa ku faanaa inaan Soomaali ka dhashay maanta dawlad xoog leh oo hareeraha dunida meel kasto waxna ku gaaraa inta inoo ku timaado daf ina ka soo dhehaysa ma haysano inaga qarankeena halka iska dhignay inaga jabinay inaga qabiil iyo qabyaalad ka door bidno ka raacnay laakiin ilaahay waxa xamdigi ah inaynu nahay dadka dunida ugu wanaagsan dun xariira isku diirnaha isku diira isku diin ah isku dad ah meel aan kala jirin si kasteen u kala qaybsanahay siyaasadda isugu diidanahay si kasteen gobollo u kala nahay maalintii ay noqoto in mid inaga kamid ah meel daran looga soo dhaco waa u wada istaagnaa garab iyo gaashaan baan u nahay tusaalena maanta taasa inoo ah waa sababta markasta aan aniga Soomaalinimadu ugu weyn tahay oo aan ugu taaganahay waxaan ogahay waxaan magaca Soomaaliyeed ku waayo waxaan ogahay waxaan ummadda Soomaaliyeed aan ka waayo inaanan meel kale aanan ka helaynin marka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin qof kasta oo Soomaaliyana waxa guul u ah waxa hanti u ah waxa ilaahay xamdigi ah inuu Soomaali ka dhashay marka walaalkeen dadaalka aan u wadnana aan u laba jibaarno arintu xoogaa waxa weeye waa in ka yara baahsan tahayna inuu aqli ku darno khaasatan reer Norway ee safaaradda wiilka loola xiriiro maxaan ku raahdaayay meesha uu joogo dayaxa laga saaro wixii loo qaban karo ha loo qabto ha loo sheekeeyo mobilka ha laga qaado intuu hadda live intuu yimaado video soo duubo dadka Soomaaliyeedna ka naxin lahaa isaguna halka ka soo ooyi lahaa waridii la fadhiyo aqli celiya maxaa tabaysaa maxaa ka maqan waxa weeye wixii ka maqan soo hordhiga inta kalena in loogu maqan yahay tusa oo daransiya markaas xaaladiisu waa degaysaa waa huba Omar waxaan leeyahay walaalkay Allah ku caafimaadiyo wixii culaysa dareemisa Allah ka dulqaado cidii cadow ah oo aan leedahay oo ku muuqata ilaahay ka qabto iyagana insha Allah ta'ala dadka Soomaaliyeedna waxaan leenahay hal ixtiraam walaalkeen nin raga weeye bari marka xaaladihiisu isku istaagaan cidii u gasha iyo cidii u dhintay wuxuu cadow leeyahay iyo wixii gacal iyo walaal u leeyahay haddana uu kala garan hadhowdiina waa u kala socnaan doonaan waxba yaan meel kale farta loogu fiiqin ku turugteenta badan hal joojiyo ninkaasi yaan la hakran hawl kale madaalayaal wali waa hogadii Canada meel kasta oo loola hadli karo ha loogu qayliyo waa shiina culay oo idin leh salaam calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh